madaxweynaha jamhuuriyadda barakeysan ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi magaciisa jiray waxaan caawa ka codsanayaa madaxweyne si karaamo leh oo naxariis badan ku jirto mar horena waan ka codsaday marka waad noo samaysay ballantaa waad samaysay ma sha Allah Allah ku karaameeyo madaxweyne waxaan ka codsanayaa Cabdi Maalik Muuse Coldoon inaad noo cafido madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi ayaa u hanjabay alfanaan Maxamed Bikey kadib markii uu codsaday in si daayo Somfale Cabdi Maalik Coldoon ayaa xiran tan iyo markii uu cadeeyay in gaalnimo laga barto iskuulka Abaarso madaxweyne waxaan ka codsanayaa Cabdi Maalik Muuse Coldoon inaad noo cafido waa markii labaadan ku weydiisto madaxweyne Cabdi Maalik noo cafi sababta aan sida ku leeyahay wax kale ma aha waqtiga abaaraha waqtiga dadku tabaalaysan yihiin shaqo adag buu qaban jiray boosishi karan maanta isu soo taagay isaga qaban jiray bulshadana cabaar buu soo ururin jiray raashinka iyo lacagtii waxba madaxweyne madaxayga عفس بانكو ويديستي إن نينكا عبد المالك موسى علتو النوع عفيدو بالشدة الصومالية مقال كون حدونية إنا جارسيسان بالشدة ملك استيشوكتو مدحوين بلانتانا وانكاسو بيه waxaan doonayaa inaad de arinta ay gala qayb qaadataan oo lacagtaas aynu ururino waxba gacantaana ku haya waa markii ugu horeysay ee aan isu taago markii hore aan de fanaanka haabaan aan qaaday mar la dagaalankii qabyaalada voluntary baan ku sameeyay Soomaaliland oo dhan aan ku soo maray oo lacagtii maca bariga igu gooday hafta baan iskaga bixin jiray ma sha Allah oo waxaan u maleynayaa tii voluntary ahayd baan saa ku galay de tan marka ay la qabataan inaan sidaa u marayo de ma sha Allah qof walba karaankiisa $2 $3 $4 $100 $1,000 qof walba wuxuu heli karo ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto ama inta af Soomaaliga ku hadasho dhan waa ka ila qabta ma sha Allah amba waxa itoosiyay istaajiyay waa bulshada si aan wax u qaban lahayn qodob kale ayaan caawa ku darayaa madaxweynaha jamhuuriyadda barakeysan ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi magaciisa jiray waxaan caawa ka codsanayaa madaxweyne si karaamo leh oo naxariis badan ku jirto mar horena waan ka codsaday marka waad noo samaysay ballantaa waad samaysay ma sha Allah Allah ku karaameeyo madaxweyne waxaan ka codsanayaa Cabdi Maalik Muuse Coldoon inaad noo cafido waa markii labaadan ku weydiisto madaxweyne Cabdi Maalik noo cafi sababta aan sida ku leeyahay wax kale ma aha waqtiga abaaraha waqtiga dadku tabaalaysan yihiin shaqo adag buu qaban jiray boosishi karan maanta isu soo taagay isaga qaban jiray bulshadana cabaar buu soo ururin jiray raashinka iyo lacagtii waxba madaxweyne madaxayga عفس بانكو ويديستي إن نينكا عبد المالك موسى علتو النوع عفيدو بالشدة الصومالية مقال كون حدونية إنا جارسيسان بالشدة ملك استيشوكتو مدحوين بلانتانا وانكاسو بيه maxkamadda Maroodijeex ayaa horaantii sanadkan sii daysay Coldoon balse wuxuu wali ku jiraa xabsiga shacabka ayaa marar badan ka codsaday Muuse Biixi inuu sii daayo Coldoon balse wali Coldoon wuxuu xiran yahay Maxamed Bikey ayaa loo sheegay inuu faraha kala baxo arrimaha Coldoon
haddii kale xabsiga ayaa la dhigayaa. madaxweyne waxaan kaa codsanayaa cabdimaalik muuse coldoon inaad noo cafido. waa markii labaadaan ku weydiisto madaxweyne cabdimaalik noo cafi. sababta aan sidaa ku leeyahay wax kale maaha. waqtiga abaaraha, waqtiga dadku tabaalaysan yihiin, shaqo adag buu qaban jiray. boosisha kalan maanta isu soo taagay isaga qaban jiray. bulshadana cabaar buu soo ururin jiray raashinka iyo lacagtii waxba. madaxweyne madaxayga cafis baan ku weydiistay inaad ninka cabdimaalik muuse coldoon aad noo cafido. bulshada Soomaaliyeed muuqaalkan waxaan doonayaa inaad gaarsiisaan bulshada meel kasta joogto. madaxweyne ballantaana waan kaa sugaya. waxaan doonayaa inaad dee arrintaa igala qayb qaadataan oo lacagtaas aynu ururino. waxaba gacantaana ku haya. waa markii igu horreysay ee aan isu taago. markii hore aan dee fanaanka haabaan aan qaaday mar la dagaalankii qabyaaladda voluntary baan ku sameeyey. Somaliland oo dhan aan ku soo maray oo lacagtii maca berigaa igu gooday hafta baan iskaga bixin jiray maasha Allah. oo waxaan u malaynayaa tii voluntary-ga ahayd baan saa ku galay. dee tan markaa ila qabataan inaan sidaa u marayo dee maasha Allah. qof walba karaankiisa $2, $3, $4, $100, $1000 qof walba wuxuu heli karo. ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogto ama inta af Soomaaliga ku hadasho dhan waa ka ila qabta maasha Allah. amba waxaa itoosiyey ee istaajiyey waa bulshada si aan wax u qaban lahayn. qodob kale ayaan caawa ku darayaa. madaxweynaha jamhuuriyadda barakaysan ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi magaciisa jiray. waxaan caawa ka codsanayaa madaxweyne si karaamo leh oo naxariis badan ku jirto. mar horena waan ka codsaday. markaa waad noo samaysay ballantaa waad samaysay maasha Allah. Allah ku karaameeyo. madaxweyne waxaan ka codsanayaa cabdimaalik muuse coldoon inaad noo cafido. waa markii labaadaan ku weydiisto madaxweyne cabdimaalik noo cafi. sababta aan sidaa ku leeyahay wax kale maaha. waqtiga abaaraha, waqtiga dadku tabaalaysan yihiin, shaqo adag buu qaban jiray. boosisha kalan maanta isu soo taagay isaga qaban jiray. bulshadana cabaar buu soo ururin jiray raashinka iyo lacagtii waxba. madaxweyne madaxayga cafis baan ku weydiistay inaad ninka cabdimaalik muuse coldoon aad noo cafido. bulshada Soomaaliyeed muuqaalkan waxaan doonayaa inaad gaarsiisaan bulshada meel kasta joogto. madaxweyne ballantaana waan kaa sugaya.